بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnay buugga maadada sayniska fasalka saddexaad cutubkiisa koowaad ayaan ku guda jirnay xisdin u dambeysay waxaan kusoo sharaxnay nadaafadda jirka ayaan kusoo qaadanay iyo waxtarka hurdada iyo nasashada iyo jimicsiga ayaan kusoo qaadanay xisdin maanta waxaan ku qaadanaynaa casharka oo afraad nadaafadda guriga iyo deegaanka ku wareegsan xisida dambeysay waxaa waaye jimicsi waxyaabaha adeegsanayna waxay ahayd waa badminton oo kubadda kuul ayaa la adeegsanaya aan dhahnay badmintona loo yaqaanay iyo basket boolka oo kubadda kole loo yaqaano iyo kubadda waxyaabo kale jimicsiga lagu sameeyo waa jiraan tenniska iyo laakiin Soomaaliyeena waxaa weli hadday soo kabanayaan horumarka wadankeeda waxaa waaye oo horumarkii kusii socdaa oo developing hadda sii noqonaya wadankeena wadamada kale waxaa waa developed waa marka way horumareen marka insha Allah wadankan waana horumar doona duuliya insha Allah wadan oo nabadda wadan waxaa waa nabdoon oo amnigiisa dhan walba oo wanaagsan yahay waa noqon doona duuliya insha Allah biidhnillah okay marka hore hoygayga nadaafad lagu sheegaya marka hore waxaa laga bilaabaa gurigaaga kadib ayaa guridadow ama guri kale u gudbi kartaa marka hore hoygayga ama hoygaaga nadiifi yacni gurigaaga nadiif marka hore gurigaaga nadiifi nadaafadda gurigayga waxa ay lagama maarmaan u tahay guryaha deegaanka oo dhan haddii gurigaa soo nadiifisid markaas ayaa guriyaasha kale aad nadiifin kartaa laakiin gurigaaga haddii uskag uu yahay guri kale nadiifin haddaa dhadid waxaa waaye waa wax oo ceeb ah wax wanaagsan ma ahan wax walba markii wanaajin inaad wanaajiso aad rabtid gurigaaga ayaa ka bilaabaysaa nafsadaada ayaa ka bilaabaysaa waayo nadaafaddu waxa ay ka bilaabataa guriga mar waliba waa in aan hubiyaa in gurigeygu yahay nadiif nadaafadda waa iimaanka barkiisa waa xadiis oo nabiga laga soo wariyay marka waa an-nadaafatu nisfu min al-iimaan caqabadka tobanaad waxaa isbarbardhigayaa laba deegaan oo sawirka ka muuqda dabadeedna waxa aan dooranayaa deegaanka aan jeclahay in aan ku noolaado kadibna waxaa ardayda la wadaagayaa sababta aan u doortay deegaan T ayaan dooranaya deegaankaas ayaa dhir cagaaran aan ku aragnaa deegaan nadiif ah deegaan B waxaa aragnaa bacooyin oo wasaq aan ka aragnaa marka nadaafadiisa waa hoos aad iyo aad ugu hooseysa marka deegaan T ayaan dooranaya sababtan maxay tahay deegaan T ayaa deegaan oo nadiif ah deegaan nadiif ahna waxaa laga helayaa caafimaad good deegaanka nadiifka ah waxa uu leeyahay caafimaad waxa aynu deegaankeenu ku daryeeli karnaa qodobada hoos ku qoran waxa aan ku beeraynaa dhir badan si ay dadku iyo xayawaanka nolol wanaagsan ugu helaan qodobka labaad in aan yareyno jaridda dhirta qodobka saddexaad in aan biyaha lagu daadin wadooyinka qodobka afraad waxa aan yareyneynaa qashinka iyo wasakheynta hawada okay waxqabadka 11aad inta ku egyahay cutubka oo koowaad waxa aan koox ugu doodaynaa sidii aan deegaankeena ugu daryeeli lahayn koox
Deegaankeena waxaan ku daryeeli karnaa in waxaa waaye dhir aan ku beerno, deegaanka nadaafadiisa aan ku dadaalno, bacooyinka iyo caagadaha laastikiyadaha in waxaa waaye deegaanka aan ku daadinin, oo yacni dib loo meerteeyo oo dib loo warshadeeyo. Nadaafad deegaanka ayay ka qayb qaadataa, laakiin bacooyinka iyo caagadaha haddii deegaanka aan ku daadino, deegaankii ayay wasakheynayaan. Waa in waxaa waaye deegaanka wadooyinka marka waxaa waaye wasaqda lagu daadinin. Waa wasaqdii oo loo sameeyo diskalbiin loo sameeyo, marka meel qashin ku shub ah ama waxaa waaye god loo qodo, qashinkii markaas gubmaayo la gubo. Waxaa waaye sida bacooyinka iyo caagadaha la gubo. Sida kale waxyaabaha kale oo marka haddii carada lagu duugo, carada ay dib u cuni kartana waxaa waaye la duugo si carada hadhow nafaqo ugu yeelato. Halkan ayaan ku ekeynayaa. Waqtigiina waa noo dhamaaday. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.